hortaysay inay waajibaadkeeda soo gudato, laakiin waxay ku dhacday booskii shirkadda oo lugtiisu meesha taallay. Raaligel markays tiri waxay aragtay inuu xaalad xun ku sugan yahay. Kadibna waxa ay bilowday inay baadho. Laba kale oo meesha joogay ayaa waxay u malaynayeen in ay baadhanayso oo ay xadayso. Kadib iyadu boorso ayay soo saartay si ay bal ugu hesho kiniin ama wax naftiisa badbaadin kara. Labadii kale sawiro ayay ka qaadeen si ay ugu gudbiyaan managerka shirkadda oo kuna sheegaan in ay xadaysay. Way badbaadisay isla markaana kiniinkii ayay siisay. Isaguna waxa uu dareemay caafimaad una u mahadceliyay. Waxayna ku tiri tan waa waajibkayga, aad baad u mahadsan tahay. Iyadoo shaqadeedii ay u soo hortaysay ayay waxay maday. Managerkiiba u yeedheen waxayna tuseen in ay baadhanaysay booskii shirkadda oo meesha hurday. Kadibna way xanaaqaysaa, wayna noqonaysaa, waxayna u yeedhaysaa lajamadii. Waxayna ku tiri adeer iska soco oo gurigiinii tag. Waxaa dhacay markay ku tirina maanad arkayn, mugad baa tahay, anaga tuuganna lama joogi karo, gurigiinii tag ayay ku tiri. Iyadoo bannaanka ku hoyaysa ayaa waxaa arkaya booskii. Kadibna wuxuu ku odhanayaa maxaa ku helay inawadii bal xafiiska ayuu keenayaa. Wixii helay ayuu weydiinayaa. Iyadoo aad u ooyeysa ayay u sheegaysaa wax walba oo dhacay iyo dhib walba oo loo geystay, laakiin iyadu inayna waxaa samayn karin, marnaba ayna ku suuroobin, keliyana ayna caawinayso. Intuu xanaaqay buu yidhi shirkaddan maanaa leh mise iyadaa leh. Kadibna cod sare ayuu ku yidhi miyaanad isla xishoonayn, maxaad u samaynaysaa wax aanan anigu ogeyn, yaa ku siiyo go'aanka aad ugu yeeri karta shaqada. Kadibna si naxariis leh ayuu ku yidhi waan kaa raaligelinayaa, tanna way eedi doontaa, meeshaadii meel ka saraysa ayaanan ku siinayaa, tanna waa go'aankayga, maaha mid ay iyadu ku siisay. Haddaad aaminsantahay inuu go'aan sax gaadhay, muuqaalkan like saar, asxaabtaadana la sii wadaag. Haddaba maxaynu ka baran karnaa muuqaalkan waxaynu ka baran karnaa waxyaabo badan. Kow, inaad caawiso qof walba oo dhiban, xaalad adagna ku jira, inaad tusto in aad u naxariisan karto, inaad tusto wanaag, inaad siiso naxariis, isla markaana intii aad caawin kartaba aad caawiso. Taasi adiga waxa ay ku siinaysaa darajo aanad garan karin, markaas darajo ka sarraysa waxaan filashadaada oo dhan. Meesha aad joogtana meel ka fiican bay ku geyn kartaa. Gabadhaasi naxariis iyo wanaag ay samaysay unbay darajadaa ku gaadhay. Laakiin haddii ay samayn lahayn oo dhaafi lahayd may hesheen. Soo maa rafaadkeedii oo rooradkeedii ayay ku jiri lahayd. Haddaba adi maxaa kula gudboon? Cid walba oo dhiban wixii aad ka geysan karto ee caawimaada ka geyso. Caawi intii karaankaagaana wax ka qabo. Taasi waxa ay dhalaysaa in bulshada dhammaanteed ay fahanto qiimaha iyo muhiimadda ay leedahay is caawinta. Muuqaalkan faafi.